sidee u bixinaysaa 500 oo milyan oo dollar una helaysaa 56 bilyan oo dollar sidaas ayay Suuriya isugu rogtay carwo furan oo lagu soo bandhigo aaladda wax burburisa ee Russia waa bishii December sanadkii 2017 Bashar al-Assad ayaa soo dhaweynaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waa saldhigga militariga Ruushka ee Xamiimiim waa salaamay sawirna waa la galay markii uu Bashar isku dayay inuu raaco Putin si uu u sagootiyana waa u diideen waxa ay ahayd dhacdo aan Suuriyiintu hilmaami doonin oo ka xeel dheer tilmaan walba Putin dhulkan waa qabsaday isaga oo aan cidna ka cabsanayn taariikh ahaan waddanka Suuriya waxa uu ka mid yahay wadamada bariga dhexe ugu waaweyn ee adeegsada isla markaana iibsada hubka midowga Soofiyeed waa hub ku fadhiya balaayiin dollar oo uusan awoodin Xaafid al-Assad iyo xitaa wiilkiisa Bashar al-Assad inay bixiyaan qiimihiisa ilaa uu yimid sanadkii 2005 kaas oo la yimid in Ruushku dhaafo deyma ka dhashay heshiisyo hore oo hubayn ah kuwaas oo ku kacayay qiyaastii 10 bilyan oo dollar xilligaas aad ayuu u farxay Bashar al-Assad qofna ma ogeyn in qiimaha dhabta ah uu shacabka Suuriya ku bixin doono dhiigiisa waqti aan fogeyn markii uu dhashay kacdoonkii Suuriya sanadkii 2011 ayaa qufulka laga furay maqsinada kaydka hub ku dhawaaday inuu daxalaysto ama midhiro kadibna foolkaanaha Russia ayaa bilaabay inuu sida roobka ugu hoobto magaalooyinkii kacdoomay ee Suuriya si aan naxariis lahayn taageerada Ruushku markeedii hore waxa ay ku koobnayd taageero farsamo oo kali ah ha yeeshee mar dambe ayuu Bashar al-Assad lumiyay gacan ku haynta wax ka badan 80% ciidda Suuriya waxaana muuqatay in hubka Ruushku gacan bidixeeyay Dimashq hawsha dib soo celinta haybadii difaaca militari ee hore lagana guuleystay ee Russia Moscow waxa ay u ahayd arrin lagama maarmaan ah waxa ay bilaabatay bishii September sanadkii 2015 Bashar al-Assad ayaa badbaadin ka codsaday Putin si Vladimir Putin u sameeyo faragelin militari taasina waxa ay ahayd fursad dahabi ah oo u soo baxday Ruushka si uu u tijaabiyo inta badan qalabka xuduudda militari ay soo saaraan warshadaha Ruushku iyada oo ay dusha kala socdaan indhaha wadamada iibsan doona hubkaas xilliga uu ku jiro goobaha dagaalka diyaaradaha cusub ee dagaalyahanka ah ee Sukhoi ayaa bilaabay inay bambaanooyin foolkaana ah ku ridaan dadka Suuriya iyaga oo sameynaya duqeymo kala duwan isla waqtiga ay diyaaradahaasi duqeynayaan Suuriya dayax gacmeedyada ayaa sawirra ka qaadaya dusha sare soo degidda raxan ka mid ah taangiga caanka ah ee Ruushka ee Ta-90 taangigan ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay kuwa ugu caansan ee uu adeegsado ciidanka Russia isaga oo bilaabay adeegsiga taangigan sanadkii 1993 kadib markii lagu sameeyay horumarin taangigan waxaa lagu tiriyay inuu yahay taangigii ugu horreeyay ee la sameeyay kadib midowgii Soofiyeed taangiyadan ayaa gaaray magaalada xeebta ah ee Laadiqiya oo uu ku yaal saldhigga militariga Ruushka ee Xamiimiim Ruushkuna waxa uu u diyaar garoobay inuu ku tijaabiyo wax soo saarkiisa cusub jirka dadka Suuriya wax soo saarkan oo ay Russia ka iibisay dawladaha Hindiya iyo Algeria ayaa kadib markii la tijaabiyay waxa ay boqortooyada Sacuudiga muujisay sida ay diyaarka ugu tahay inay iibsato ka gadaal markii jarribaadii hubkan ee shaybaarka Suuriya ay muujisay inuu leeyahay tayo sare shirkadda samaysay dabaabadahan ee Ural Vagon Zavod kama aysan dhowrsan inay si dhiiranaan leh u shaaciso inay ku baartay wax soo saarkeedan horumarsan mid ka mid ah dawladaha Carbeed ayna wado qorshe loogu dhoofinayo gobolka waxa uu ahaa in ka badan 200 oo nuuc oo hub cusub ah ha yeeshee soo dhicidda diyaaradan ayaa ahayd oo keli ah jug bilaaw ah oo ku dhacday Russia taas oo shaacisay inay ku tijaabisay Suuriya wax ka badan 200 oo nuuc oo hub cusub ah taasina waxa ay bannaanka soo dhigtay tiro ceeba ah oo uu yeeshay hubka cusub sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka tijaabooyinkii shaybaaradu waxa ay si dhaqsi ah u soo saareen natiijadii kadib markii Russia muujisay in dhaxalkeedii farsamada militariga ee midowgii Soofiyeed uu wali nool yahay arrintaasina waxa ay kor u qaaday iibinta hubka Russia xitaa waxa ay ka iibisay dawlado aan isbahaysi la lahayn sidaas awgeed shaybaarku waxa uu diyaar u yahay المعمل جاهز للمزيد 7 Oktoobar 2015 afar markab oo ah kuwa wax burburiya ayaa ku soo xirtay marsada badda Qazwiin si ay uga howlgalaan fulinta tijaabadii ugu muhiimadda badnayd marka loo eego dhoolatuska murqaha militariga Russia 26 gantaal oo ah nuuca balastiga oo dhawaan la sameeyay lehna magaca Kaliber dhinaca dhoolal ku jiray gacanta Daesh waa gantaalaha isaga gudba qaaradaha waxaana riday ciidanka badda ee Ruushka si gantaalkaasi u gooyo masaafo dhan 1500 oo
kilomitir isaga oo dul maraya dhulalka Iiraan iyo Ciraaq kadibna gaaraya Suuriya balse waa maxay sababta ruushku u bixiyay milyan iyo 200,000 ilaa milyan iyo 500,000 oo dollar oo qarash ah oo ah qarashka ku baxaya ridida hal gantaal oo ah nuuca kalibar iyada oo ciidanka cirka ee ruushku awoodo inuu u fuliyo shaqadaas si karti leh kuna qabto qarashka maalinlaha ah ama wax in yar ka badan sababta ku qaaday ruushka inuu sidaas yeelo ma ahayn inuu ku beegsanayay ururka Daacish dhammaan malaayiintaas dollar balse waxa uu ahaa bandhig loogu talagalay inuu dhareerka ka qobo dawladaha iyo in hubka loogu xafladeeyo gobolka isaga oo wata gantaalihiisa cusub ee garbaha leh ruushku waxa uu xoogga saaray laga soo bilaabo sanadkii 2015 adeegsiga diyaaradaha bambaanooyinka rida sida So-24 ma iyo diyaaradda weerarka ee So-25 sa'ma sanadkii 2016 waxa ay siyaadisay holoceedii ka imaanayay cirka sidaas awgeed Russia waxa ay meel walba ku fidisay diyaaradaha dagaalyahanka ah nuuca So-35 sa kuwaas oo ka kacayay saldhigga militariga ee Xamiimiim June 2017 Moscow waxa ay soo bandhigtay diyaaradda So-27 ma 3 iyo koobiyada ugu horumarsan ee gantaalaha Jojo ee heerka dhexe kuwaas oo loogu talagalay maamulka Bashar al-Assad sidaas oo kale diyaaradda Sukhoi 34 ayaa ka dhignayd aalad wax burburiso oo kale taas oo weli ku jirta tijaabada isla waqtigaasna Algeria ayaa dalbatay 12 diyaaradood oo Ruush ah oo ah nuucan dawlado kale ayaa iyaguna sheegay inay doonayaan diyaaraddan dawladahaas waxaa ka mid ah Indonesia Hindiya Malaysia Nigeria Uganda Ethiopia iyo qaar kaloo badan isla bishaas wasaaradda gaashaandhigga ee ruushku waxa ay shaacisay horumarinta diyaaradaha dagaalka ee qomaatiga u kaca nuuca Ka-52 oo loo yaqaano magaca Yaxaas kadib markii lagu tijaabiyo Suuriya sidaas oo kale Russia waxa ay adeegsatay markii ugu horeysay helikobtarada Mi-8 Mi-24 iyo Mi-28 oo loo yaqaan magaca ugaarsatada habeenka intaas oo kali ah kuma aanay gaabsan Russia balse waxa ay isku dayday dib u soo celinta xusuusta dagaalkii qabooba iyada oo la adeegsanayo hawada Suuriya kadib markii meel u dhow hawada sare ee Suuriya lagu arkay diyaaradaha dagaalyahanka laayaanka ah ee Mareykanka taas oo sababtay in ruushku go'aansado inuu Suuriya u soo diro laba ka mid ah diyaaradaha dagaalyahanka ah ee facashanaad oo ah nuuca loo yaqaano Sukhoi 57 iyada oo ujeedku ahaa tijaabinta xaalad dhab ah sidaas oo kale Russia waxa ay faragelinteeda Suuriya ku gashay qariska xornimada hubayn cusub ciidanka ruushku ma lahayn diyaarado waxtar leh oo ah nuuca duuliyaha aan lahayn laga soo bilaabo sanadkii 2013 sidaas awgeed waxa uu u baahnaa inuu helo dhul ku tijaabiyo hubkiisa cusub oo hadda adeegsigiisu ku kooban yahay oo kaliya ah ujeedo isdifaac ah sida dhacdayna waxaa soo baxay madax ka tirsan maamulka Suuriya oo shaaciyay inay adeegsanayaan moodalada ruushka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn إشعال الجحيم sidaas awgeed waxa uu isticmaalay bambaanooyin kala duwan oo ah kuwa aadka u qarxa sida nuuca bambaanada cluster oo caalami ahaan adeegsigeedu xaraan yahay kuwaas oo la adeegsaday waxaan ka yarayn 212 goor intaas waxa dheeraa adeegsiga rasaasta waxgubta oo iyadana la adeegsaday wax ka badan 105 mar magaalooyinka Idlib iyo Xalab oo kali ah gujiska ayaa iyaguna ahaa wax kale waxa ay yimaadeen goobaha dagaalka markii ugu horeysay iyaga oo siday ama xambaarsanaa madaafiicda bartilmaameedka leh iyo gantaalaha dhulka iyo cirka kuwaas oo awooda inay xambaaraan madaxyo nukliyeer ah sidaas oo kale kamaradaha warbaahinta ayaa qabtay masawiro iyada oo Bashar al-Assad booqanayo saldhigga militariga ee ruushka ee Xamiimiim oo uu dhex yaal taangiga taageerada holaca oo ah nuuca PMPT-72 oo ay u tahay markiisii koowaad ee la geeyo meel ka baxsan Russia waxaana ku lamaansanaa bandhig ballaaran oo ah hanaanka difaaca cirka waxa yimid waqtigii gurashada falcelinta iibsiga hubka ruushka ayaa si dhaqsi leh u timid hal sana oo kaliya ah kadib waxaa la diiwaan geliyay dalabka hubka ruushka heerkii ugu sarreeyay laga soo bilaabo sanadkii 1992 waxa uuna madaxweynaha ruushku fishay inuu sanadkaas 2016 saxiixo heshiisyo lagu dhoofsanayo hubka Russia qiimo kor u dhaafaya 56 bilyan oo dollar kadib faragelintiisii Suuriya iyada oo lagu qiyaasay miisaaniyadda ku baxday howlgalkan oo kaliya ah nus bilyan ruushku waxa uu suuqyada dibadda u dhoofin jiray sanadkii 2015 hub qiimihiisu uusan ka badnayn 14 bilyan iyo bar dollar
sannadihii 2013 iyo 2014 beeca hubka ruushku ma dhaafin 10 bilyan iyo 300 milyan iyada oo suuqyada hubka ee caalamiga ah ay Raashiya uga jirto kaalinta labaad waxaana ka horeeya oo kaliya ah Mareykanka hubkii ruushka ee lagu tijaabiyay Suuriya waxa uu si dhaqsi leh u aaday dawladaha gobolka iyo xitaa dibadda sida Algeria, Pakistan, Hindiya ilaa laga gaaro Vietnam, Indonesia iyo Latin America iyada oo uu socdo adeegsigii ugu ballaarnaa ee Shiinaha. الموت تحت تجارب آلة الحرب الروسية. laga soo bilaabo bishii February waxaa la dilay tiro u dhaxaysa 8324 ilaa 11282 qof oo rayid Suuriyan ah kuwaas oo ku baxay gacanta Ruushka intii ay socdeen tijaabooyinkaas nool isbitaalada iyo dhismayaashu waxay ahaayeen bartilmaameedyo muhiim ah 119 xarun caafimaad iyo 47 qof oo ah shaqaale caafimaad ayaa ka mid ahaa dhibanayaashii ku baxay tijaabada waxaa ka qaxay naarta iyo holaca hubka Raashiya 2 milyan iyo 300 oo kun oo qof iyada oo ujeedka faragelinta loogu soo gambaday ee la shaaciye u ahaa dagaal ka dhan ah ururka Daacish waxa uu Ruushku xoogga saaray beegsiga meelaha ay joogaan mucaaradka Syria isaga oo adeegsanaya gaashaanka hubkiisa bandhiga ah hubkaasi 85% waxa uu beegsanayay mucaaradka halka uu 15% oo kaliya ku wajahnaa deegaanada ku jiray gacanta ururka Daacish 3 sano oo tagtay ma aanay ahayn wax ka badan howlgal tijaabo ah oo lagu sameeyay shaybaar ku fadhiya beddhan 180,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah kaasoo magaciisa la yiraahdo Suuriya waxa la moodaa in Putin ku leeyahay askartiisa ku burburiya awoodda oo dhan si aan wax badan u iibino دمروا بكل قوة